ما أنت ويلك إيران إنه هو يمكن أبياشر الأسكوري ورأت ما قلتلي ذات كمقدشة أسكورية أو والله أو بالله أو طلع حدو هذا الكيكو بينه مركلة هاي دعوة سجاشن يسجال وإيران وننكا قبلها حبررتا iyo hooyada iyo eedada al-shabaab ka habeenkii intay ka haystaan subaxii Kenya wiilka reer koonfur galbeed oo wiilka hor taagano oo qori la hor taagano hooyada ilaalinaya weeyaan iyo gabadha walaashaaya qori ku ilaalinaya oo ku xoreynaya mise gawa iyo aadan yabaal iyo shabeelada dhexe wiilka ku xoreynaya weeyaan waa wiil raxweena wax kale oo aan leeyahay ma jiro argagixisa la socota eeray argagixisay wadataa shabaab ayaa ka dhinac dagaalamaya dagaalkaasi waa xaq in laga wada qayb galana waa muhiim qofkii ku dhintana wada saxan buu dhintay dulmiga dan baan ugu kalaftay inaanu ku soo jawaabno hooyooyinkaaga baa ilaalinayna walaaladaada ilaalinayna habarirahaga baa ilaalinayna oo wiilasheeda waxay ku dhimanayaan aadan yabaal iyo meel daran bay ku dhimanayaan iyagoo aaminsan inay dawlad Soomaaliyeed tababadhay oo dhul Soomaaliyeed difaacaya ba hooyada ay al-shabaab ka ilaalinayna ala dheerayo adeer gacali hadda aflagaadada naga joojin weeyday hadda anagana kuwa iyaga waa la soo baxaynaaye bal cid hooyada ilaalinaysa arkayna iyo habrirta iyo eedada iyo walaasha cid ilaalinaysa misgawa iyo aadan yabaal cid ku ilaalinaysa ba arkayna maanta in aan daawado in mid yaroo miskiina oo eeray intuu soo fariisto baraha bulshada uu leeyahay gaal baa xasuuqaya gaal jecel baan laynaya annaga maylaan baa nala yidhaahdaa waa laydin yeelay aan leeyahay walaalayaal gacanta eeray ay ku tuugsato oo go'an ayaa halkan u fadhiya nimanka tuugadaana waxaan leeyahay war labada orod mid joojiya marka horena waad soo ordaysaan oo dadku waxaa rabta inaad gaadmo ku laysaan marka dambana waad sii yaacaysan labada orod mid joojiya ama noqda rag wax soo weeraro xiniyooda fuula meel qabsada ama noqda rag adeer gacale laga adkaaday meel maro oo sida rag u dhaqmo banaanka maro nimanka way naga adkaadeen dawladda way naga adkaatay hada noqda kotab baa jirtay 60 ma aqaan waxa jirtay wali waxa soo fadhida qol yar bad ku jirtaayo uma Soomaaliyeed baa isku diraysa shabeelada hoose aad sheegaysid horta waa hore lagu kala baxay hadad moodaysid in hadda lagu kala baxay inta adigu laba reero oo Soomaaliyeed oo isdilaysa aad u kala munaafiqadeynaysi bal lagu kala baxay inta muqtaar rooba waxa laga hayaa Soomaaliya baale koonfur galbeed oo dhameystirno unile koonfur galbeed oo kulmo unile ere waa hadal xadiisa ku noqosho male adeer Soomaali baale koonfur galbeed oo kulmo unile warka ha kugu dhaco meel ku qoro hadda shabeelada hoose u soo hanqal taagaysid marka mi fiideegana sheer garay horta gaarsiya ha ogaado in aanu ilaalin ilaahay ka soo bari hadda aanu ka soo baxo wiilasha reer koonfur galbeed haday ka soo baxaan in sida la yeelay hooyadii habeenkina la kaxaysanayo subaxina la soo celinayo عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داودي على سور دوادا وانيغو يونس قيسا ما أنتو حنوصو فريستي نين أضيو واحد بدنا كوروريجي هذا الكيسة عن شعلينا وحكدها بلسه دنيبو ويكنتينا وحكير هذا نكاسي وعبد الله بلوان مر بدن بهذا الكيس نقصون نقضي واحد بدن كده ما يسجى نك مركو قضية لي هيبة وحلقي هذا سأقول لكن قضية ملها حدبا ماشي قويم بولتشرة أما ماشي شرور كيسة كهليو فرت عبد الله بلوانو ما أنت كنت نشربها تهايو أساقا وحيكو باقي النبض إما هينين أتكو باقي هذا عولاد أتكو باقي سن عولاد أديكا كسامين يسمعها بلسه أديكا واحد بدن كورن ما ينين أبا Soomaaliyeed باتهايو لكن ونقول لك نقصنايا نين كرجع ولا لك نقصلا هذا واشد دون هالكنا كشدية أو دتكو إسلام مغلي دونان أرتبل هذا الذي سقار كم إذا نصدق يسون مركز سانوس ونقول الناوي هذا لا قفك هوية وهو يسعى إنه قام قاضي إيراي ما أنت قفك هوية مركز ترى الدولار دجال إيراي وضع أيات شراء وحكوا لها من إيراي قام قاضي كه لكن وصور ما تهشوتكي وصور ما ذي دلقاتكي دجال كشباب الهوسي ومد الصوماليين دوالكم مرقاتين يا قام بلا أيام القوم دولا دجال كجال جعل وكل جيرو دقل يمرفله دجال كجال جعل وإيراي كل جيرو قف كستو ورش بلا الهوسة
u dhashay hawiye waa inuu gaabjecel garab istaaga hadalkaasi waa kama dambayn waay wax kale oo aan u leeyahay ma jiro wuxuu yidhi ceelayda masaakiinta buu yidhi horta aniyo cabdulaahi balwaan qofka masaakiinta soomaaliyey noo kala garnaqa aniga wiilka reer koonfur galbeed markaa ahay koonfur galbeed baan ka imaadaa dowladda federaalkan imaadaa tababar baan qaataa markan tababar qaato koonfur galbeed layguma celiye waxaa laygeeyaa misegawa iyo aadan yabaal iyo goboladan dhexe oo galmudug baa laygeeyaa si aan u xoreeyo wuxuu leeyahay ceelayda gacantiida ma qabato buu yidhi oo masaakiin taliya shubba waxaa la yidhi nin askari wuxuu ku yidhi hooyadaa lagula qabaa markaas la weydiiyey war maxaa saa u turisay markaasuu yidhi hadda waa runtay buu yidhi ninbaa shuute baa nin waraysanay markaasuu yidhi dumarka habeenkiina waa la kaxeeyaa buu yidhi subaxiina waa la soo celiyaa hadda aniga intii la sheegay u dhahay wax ka badanna ma sheegin wiilka reer koonfur galbeeda waa ka aadan yabaal iyo shabeellada dhexe kuu xoreynaya weeyaan isagoo weliba sharaf lehoo tuuto xiranoo nin dowladeed ah weeyaan ninka raxweyn oo kuu xoreynaya shabeellada hoose waa ninka gabdhaha habrarta iyo hooyada iyo eedada al-shabaabka habeenkii intay kaxaystaan subaxi keenaya wiilka reer koonfur galbeed oo wiilka hortaagano oo qori la hortaagano hooyadaa ilaalinaya weeyaan iyo gabadha walaashaaya qori ku ilaalinaya oo ku xoreynaya misegawa iyo aadan yabaal iyo shabeellada dhexe wiilka ku xoreynaya weeyaan waa wiil raxweyn ah haddii qabyaalad la dhaho oo qabiil xaggeeda loo noqdo adigana kaaga hawiye waa nin marti ii ah oo xoolo dhaqato ahoo aan ku uri inaad anagu ganacsigan ku fiicannahay maadaama anaga wax soo saarka kale aan ku fiicannahay caanaha noo keeno caanaha iibso halkanna deg intaan ku nidhaano aad idinku ciidan ahaan usoo hubaysaan oo asbaaraysna ii keenaya weeyaan horta labadeena yaa miskiina aniga hooyadaa baa ilaalinaya habarartaa baa ilaalinaya eedadaa baa ilaalinaya aadan yabaal baan ku dhimanaya misegawa baan ku dhimanaya shabeellada dhexe dhan baan ku dhimanaya anoo raxweyna oo weliba aaminsan wiil qaran inaan ahay oo aaminsan in dowlad Soomaaliyeed i tababartay oo aaminsan in dal Soomaaliyeed difaacayo ba meesha ku dhimanaya adiga hawiyana waxaad xurinaysaa colaad qabiilad waxaad leedahay hawiye oo kacay raxweyn lagu diilo baa leedahay labadeena yaa miskiin oo u baahan in la garab qabto waxaa tiri gacanta raxweyn ku tuugsataa la keeno ha gooyso wararta kelmadda laba kelmadood waxba ka oranaya raxweyn way tuugsataa iyo raxweyn waa al-shabaab labada hadii maanta kiis layga helo waa ogolay waa qaadanaya laakiin anu taariikhda ii gelin meysaan waa tuugsataa iyo al-shabaab baata haddaan tuugsado war meeshan tagnaba waa lanaga raafay waxa la leeyahay meeshay soo galaan ganacsiga ku fiican yihiin waa ganacsato fiicano hala naga raro ganacsiga bay naga qabsadeen baa la leeyahay haddaan tuugsado sababta dadka ay ceelinayaan maxay tahay ay noo leeyihiin meesha yimaadaanba ganacsiga bay la wareegayaan wata kale haddaad leedahay al-shabaab baa tahay qofku wax walba waqti geliyo horumar buu ka gaaraa maxaa saraakiil al-shabaab u yeelan waayay maxaan al-shabaab darajo sare ugu gaari waayay haddii aan al-shabaab ahay adigana على ديره هويدا iyo habarta intuu niman u soo diro inta Ugandesa oo leeyahay soo kaxay habeenkina subaxina hal la keeno oo u kufsanay oo si walba uga yeelaya ma garatay warta Bruno xishood nin odaya baa tahay 60 jir ah 50 jir inaan ku soo jawaabo ma rabin laakiin danta ay u kalaftay sidaad u hadlaysid wata kale wuxuu yiri numberkiisu hoos ku soo qoray wuxuu yiri numberkan ha laga soo hadlo wixii fariin ha lagu soo diro fariin ma gaalci albu fariin u diray wuxuu leeyahay numberkan igala soo hadla raxweyn ana habeenay maalin barnaamij ka soo sameynayay soo afuufaya numberkan waxaad igu soo diri kartaan igu soo dira buu ka wada inuu san qadiyad lahayn taas ba ku cadeynaysa caaw hadda numberkiisa $100 ku diraan ilaa nin raxweyn ahay dii saaxib hawsha la soo bari wuxuu dhahay gaalci albu tuug hala laayo ma garatay 5 sano farmaajo caay oo uu lahaa farmaajo waa tuug farmaajo waa kan dhan walba uu caay maalinku xilka ka digayna wuxuu yiri la ilaha illa allah farmaajo rasuul buu ahaa adeerkii baa yimi oo Xasan Sheekh Maxamuud hadda uu daba socda 2 sano iyo bar baa Xasan Sheekh Maxamuud caayaya wax kale uma caayaye wuxuu rabaa war wuxuu leeyahay wax ii gali hadda dadka caadiga oo si wax loo shacaaday garanayaan siyaasiyiinta wax looga qaato isaga garan maayo caay iyo aflagaad meel la soo fadhiisanaya wareer gacaliye aflagaad waxba lagu ma hele qofka hadda shahaadaysi si caadi loo shahaada inta loo yimaado laha adeer gacaliye wax ii gali ma garad كتب باترتي اللي حدر ما قانو حاترتي وليد waxaa soo fadhida qol yar baad ku jirtaayo uma Soomaaliyeed baa isku diraysa
shabeellada hoose aad sheegaysidna horta waa horaa lagu kala baxay haddaad moodaysid in hadda lagu kala baxay inta adigu laba reerood oo Soomaaliyeed oo isdilaysa aad u kala munaafiqadaynaysi bal lagu kala baxay inta yar harsan tuugadaana waa luqluqasho bal lagu luqluqanaya waa horaa lagu kala baxay meesha baraawe iyo dhulka waa horaa lagu kala baxay ninka reeyna reer ku haray ma garatay inta yar oo yaaq bari weynana waa lagu kala baxaya laba cali isweydiin mayso waa luqluqasho waa biyo raacis baa la dhahaa waan biyo raacinayna ama soo raac ama soo raacina annagu yeeli mayno isbaaro qori wadata horeyna waan u diidnay haddana yeeli mayno mukhtaar row waxa laga hayaa Soomaaliya leh koonfur galbeed oo dhameystirno unile koonfur galbeed oo kulmo unile eri waa hadal xadiisa ku noqosho male adeer Soomaaliya leh koonfur galbeed oo kulmo unile warka ha kugu dhaco meel ku qoro haddaad shabeellada hoose u soo hanqal taagaysid Cabdicasiis lafta gareen wuxuu yiri anoo 20 jir baa isbaari diiday anoo 50 jir ana yeeli ma taasna waa xadiis yana meel ku qoro labada kelmadood baa ku deeqdo haday ku deeq weydo baaruud baa ka soo horeysa adeer cidna ku bayimayso ama 50 jir ama 60 jir ama 70 jir nimanka tuugadaana waxaan leeyahay war labada orod mid joojiya marka horena waad soo ordaysaan oo dadku waxa rabta inaad gaadmo ku leysaan marka dambana waad sii yaacaysan labada orod mid joojiya ama noqda rag wax soo weeraro xiniyooda fuula meel qabsada ama noqda rag adeer gacale laga adkaaday meel maro oo sida rag u dhaqmo banaanka maro nimanka way naga adkaadeen dawladda way naga adkaatay hada noqda laakiin orodka gaadmada iyo orodka marka xabada aad kuleelkeeda aad dareentaan ordiisaan kala daaya horta balwaan intaasan ku leeyahay oday baa tahay xishood nin weyn baa tahay waanu ka xishoonay 100 jeer baanu ka xishoonay xishoon meesi dan baan ugu kalaftay inaanu ku soo jawaabno hooyooyinkaaga baa ilaalinayna walaaladaada ilaalinayna habarraaga baa ilaalinayna oo wiilasheeda waxay ku dhimanayaan aadan yabaal iyo meel daran bay ku dhimanayaan iyagoo aaminsan inay dawlad Soomaaliyeed tababadhay oo dhul Soomaaliyeed difaacaya ba hooyada ay al-shabaab ka ilaalinayaan ala dheerayo adeer gacali hadda aflagaadada naga joojin weeyday hadda annagana kuwa iyaga waa la soo baxaynaaye bal cidda hooyada ay ilaalinaysa arkayna iyo habrarta iyo eedada iyo walaasha cidda ilaalinaysa misgawa iyo aadan yabaal cidda ku ilaalinaysa ba arkayna wali sug yahay Xasan Sheekh Maxamed hubkii ugu badnaa uu geeyay shabeellada hoose shabeellada dhexe waad kuwiin kuwa ku soo cararay oo hubkii al-shabaab uga soo cararay annagu hubna al-shabaab uga ma cararno al-shabaabna tan naga dhaxaysa waa la og yahay ma garad balse kan horta al-shabaabka oo isbaarada u taalan iska celinayna kadibna ka kale markaas iska celinayna laakiin balwaan wadiga garta bal noo kala noqo aniga balwaan qofka miskiina noo kala garna anigu yaana yabaal baan ku dhimanaya wiilasheeda ku dhimanaya isagana isbaar uu soo qaatayo yaaq bari weyn rabay inuu carruurtayda iyo maatadayda maxasteedu rabo in isbaara ka qaado uu laayo uu kufsado anna hooyadii iyo maxastiisa ilaalinaya waxaan leeyahay war baa uu kaaday wadad Soomaaliyeed nimankan qawaariista ka celi marka fiideegana sheergaray horta gaarsiya ha ogaado in aanu ilaalin ilaahay ka soo bari hadda aanu ka soo baxo wiilasha reer koonfur galbeed haday ka soo baxaan in sida la yeelay hooyadii habeenkii la kaxaysanayo subaxina la soo celinayo qof dumar habeenkii la kaxeeyay subaxii la soo celiyay hadda ma garan karayna aanu kuma dambaabi karayna cilmiga habeenkii la baranay muxuu yahay al-shabaab dad barayo oo subaxii maalintii intuu qoraxda soo jeedana aan dadka baraynin habeenkii markay qoraxda dhacdo maamooyinka iyo gabdhaha yararka ay barayaan ma garanaya aniga balwaan xishood hadda xishoon weydina adeer gacaliye Soomaali ma kala xishooto way kala baqdaa dariiq baan iska kaamireenna waraad baa idin salaamay fiideo share garay waa jimcaha ninka kuma fogaan karee halka ay joogto